haweeney ayaa reerkeeda waxay u sameyn jirtay rooti maalin kasta rootiga inta reerkeeda cunaan ma ahane inta kale mid kamid ah waxay saari jirtay daaqada reerka qoyska guriga meesha daaqada ah ay saari jirtay halkaas waxa soo mari jiray nin oday ah waayeel ah oo baahan wuxuu qaadan jiray xabadaas rootiga ah mar alla markuu rootiga qaato wuxuu yiraahdaa wixii shar hoos sameysana waa wax adiga kugu koobnaan doona wixii khayr oo sameysidna waa wax kugu soo laaban doona intaas uu ku soo celiyaa maalin kasta marka uu meesha soo maro haweeneydii ama islaantii rootiga halkaan saari jirtay maalin kasta daaqada bay ka dhigaysataa waxayna maqashaanay kan oo intaan ku celinay barigii dambe aad u carootay oo waxay nafteeda weydiisay maxay tahay ninkan maalin kasta adiguna aad wax siinayso oo sadaqada aad siinayso asigana sidaan kuugu abaal gudayo kule khayrka sameysidna waa mid lagu soo celinayo sharta sameysidna waa mid adiga ku ag joogi doonto ama kugu ekaan doonto markaas shaydaan baa maalintii dambe haweeneydii la hadlayo nafteedu waxay ka heshay inay istiraada ninka kan dilba oo sumee markaas xabadii rootiga hayday u saari jirtay daaqada ee wax u marisay sun markay meesha saari rabtay ay waxay dareentay culays way cuslaysatay waxay tiri oo maanta maxaad sameynaysaa qof bini aadana baad dilaysaa oo aad sababtiisa aad u yeelanaysaa may rootigii bay waxay ku tuurtay dabkii ku tuurtay mid kale dubtay kii meeshii sidii awalba u dhigi jirtay ay u soo dhigtay marka ay soo dhigtay haweeneydana waxa sadaqadaanu ay maalin kasta u sameysaayo culays baa jira ay dareemayso nafteeda ay ka dareemayso oo ah wiilay dhashay ayay weysay muddo marka ilaahay waxay kaga rajeynaysaa sadaqadaas ay bixinayso inay maalin uu wiilkeeda kula kulanto maalintii ay rootiga sumaysan ninka sii gaartay laakiin ay ka laabatay ee ay rootiga wanaagsan meesha dhigtay albaabka waxa u soo garaacay wiilkeedii oo aad iyo aad u duruufaysan duruuf baan ay ka muuqato markaasay weydiisay waxa ku dhacay markaasuu yiri hooyo muddaan ka maqnaa gaajo iyo duruuf haysa darteedna waan dhiman lahaa maanta haduusan nin waayeel ah caawin lahayn waan dhiman lahaa markaasay tiri waa waxay ninka waayeelka ku caawiyo hooyo sidees ku caawiyo markaasuu wuxuu ku jawaabay nin waayeel baa iga hor yimi oo wata xabad rooti markaasuu wuxuu igu yiri hadii maalin kasta irsaaqdeeda rootigan bay ahaytaa xabada rootiga ayaan quutaa laakiin maanta baahida adiga ayaa iga baahi daran xabada rootiga ah qaado oo quudo garanaysaa ninka mid ku yahay ninku waa ninkii daaqada ka qaadan jiray rootiga islaantan uu waramayo ayaan rootiga maalin kasta daaqada u saari jirtay bal ajiib qoftii dumar ahayd way garatay in ninka wiilkeeda rootiga soo sii uu yahay odaygii waxayna ogaatay hadalka uu dhihi jiray waagii oo ahaa khayrka aad samaysidna waa mid kuu soo laabanaya sharta aad samaysidna waa mid kuugu ekaan doonto ka waran marka haddii haweentaasu ay ficilkaas samayn lahayd rootigaas samaysan ay meesha saari lahayd rootiga waxaa cuni lahaa wiilkeeda uuna dhiman lahaa marka waxay noqon lahayd sharti ay samaysayna ayada unbay ku ekaatayoo odayga kumay disheen nafteeda iyo wiilkeedii ku dil lahayd khayrka ay samaysana hadda waa kaasoo waa loo soo celiyay qisadan marka waxaan ka baranaynaa in khayrka la sameeyo adduun iyo aakhiraba ilaahay uu ku abaal siin doono ka ajar siin doono aakhiro adduun uu ku abaal siin doono shartana kadalika sharta aad samayso adduunna ay kugu soo noqon karto aakhirana sidoo kale ay kugu soo noqon karto marka qisadaasi waxay ka hadlaysaa khayrka oo la sameeyo